deeqdan ay hay'adda Xamdi Foundation maanta guddoonsiisay qaar ka mid ah caruur agoon oo ka soo jeeda qoysas danyar ah oo ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ahayd lacago kaash ah oo la guddoonsiinayay waalidiinta caruurtaasi gacanta ku haysa. qoysaskan oo ay tiradoodu gaaraysay in ka badan 63 qoys ayaa waxa la siinayay $50 qoyskiiba, waxaana dadkii deeqda la guddoonsiinayay aad uga mahadceliyeen kaalmada ay soo gaarsiisay hay'adda Xamdi Foundation. wakiilka hay'adda Xamdi Foundation ee gobolada Jubbooyinka Maama Samsam Yuusuf Colaad oo iyadu deeqda gaarsiisay qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegtay in deeqdan ay ugu talagaleen inay uga farxiyaan caruurta agoonta ah ee ka soo jeeda qoysaska danyarta ah inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, iyadoo lacagaha ku wareejisay gudoomiyaha ururka haweenka Jubbaland Marwo Batraan Maxamed Cabdulle taasoo guddoonsiisay waalidiinta caruurtaasi gacanta ku haysa. anigoo ka socda hay'adda Xamdi Foundation waxaan rabaa ama xarunta agoonta rabnaa Kismaayo ka sameeyno in deeq yar oo lacageed oo aan rabno xilliga Ramadaanka inaan u deeqno caruuraha agoonta ah ee ku nool magaalada Kismaayo gobolka Jubbaland. marka deeqda lacagta waxay dhantahay $3,500 Mareykanka, waxaana ku wareejinayaa gudoomiyaha saddexda gobol ee Jubbaland Batraan oo u qaybinaysa. aad bay u mahadsan tahay anaa ku hadlayo magaca ururka haweenka Jubbaland. waxaan si aad iyo aad mahadii shukri ugu haynaa Ilaahay subxaana qaadirka ah qaasatu hadana Xamdi Foundation hay'adda la yiraahdo oo Samsam ay ka tahay wakiilka oo maanta ugu horeysay wax lacag soo gaarsiiyay agoonta Jubbaland. waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan Jubbaland Ilaahay wax nagu soo dhiibaan ama ururka agoonta wax lagu soo dhiibo Xamdi Foundation lagu soo dhiibo oo wakiilka ka tahay Samsam. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Samsamay sida maanta dhiirigelinta leh oo agoonta bisha sano ugu keentay lacagta. aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa hadaan ururka haweenka ka codsanayna dalka dibadda joogo oo u dhashay gobolada Jubbooyinka agoontiina wax uma qabataan, maatadiina wax uma qabataan, curyaanka wax uma qabataan. marka walaalaha maanta noo yimid ee Xamdi Foundation hay'adda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadaan haweenka cod dheer iyo cod gaaban waxaan leenahay wax noogu soo dhiiba Xamdi Foundation u gaarsiina annaguna agoonta talaalaysan ee ku nool gobolada Jubbooyinka. agoonta maanta wax la siiyay ma aha agoon qabiila, waa agoonta ku nool gobolada Jubbooyinka qaasada degmada Kismaayo. dadkii deeqda la guddoonsiiyay ayaa si aad uga mahadceliyay kaalmada ay soo gaarsiisay hay'adda Xamdi Foundation, iyagoo u duceeyay dadkii soo sadaqaystay lacagahan isla markaana codsaday in la soo gaarsiiyo kaalmo intan ka badan. ay maxaa ugu duceynaysaa dadka soo ilaahay noo soo qaado waana ku alxamdulillah ilaahay ma hadla